سي علي فانا علي سي ومدحوينها ugu soo dhaweeyay waa maadsanteen. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مدن مدحويني مدن يالي مروي السلام عليكم ورحمة الله. عبد الرحمن ayaa sheegay ujeedada rasmiga ah oo madashatan waxa weeyaan ma aha tii aynu bilaha ku kulmi jiray oo BDRC Talks oo ku kulmi jireen bulshada iyo aqoonyahankeeda. Tan waxa weeyaan waa mid madaxweynuhu uu naga codsaday inuu la hadlo bulshada reer Puntland, bulshada Soomaaliyeed iyo aqoonyahankeeda guud ahaanba waxgaradkeeda. Hadal badan meesha kama wadaan aan u maleynayaa waxay wada sugaynaa waa madaxweynaha iyo hadal jeedintiisa iyo ogolaada inaan kusoo dhaweeyo madaxweynaha Puntland mudane Saciid Cabdullaahi Dani. Fadlan. بسم الله الرحمن الرحيم. مسؤولين الدولة كلا دوان ما تشرفت كلا BRDC يدمان كسوق بقلياشة ميديا هاي يعد كلا جوتالكا دمانتينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaan marka ugu horeysa uga mahad celinayaa hay-adan cilmi baarista oo runtii Puntland qiimo weyn ugu fadhida muddo dheerna soo jirtay mar walbana u taagan siday cilmi baaris uga sameyn lahayd Puntland iyo dalka oo dhan waxa dadka Soomaaliyeed danta u ah. dabcan dan aan la fogurin oo aan la jihayn inta badan waxa ka soo baxa cawaaqib xumo. marka ummad meel degan oo ummadan noloshan casriga ah ku nool waxay u baahan tahay ummadaas waxa loogu adeegayaa ama meesha loo jihaynayo inay mar walba ay cilmi iyo aqoon iyo cilmi baaris ay ku dhisnaato. hay-adan waa hay-ad si madax bannaan u shaqaysa laakiin asad Puntland ah si dhowna dawladda ula shaqaysa inay ka kaabto sidii ay ugala talin lahayd waxyaabaha dadka reer Puntland ay tabayaan iyo guud ahaan Soomaaliya sidoo kale tana u soo gudbiso dareenka dadka iyo waxa ay dareemayaan si ay ugu dhisto qorshayaasha dawladdu ay dadkeeda ugu adeegayso. dabcan dawladdu waxay inay tahay adeege idinka xilka u doortay waxaana ugu doorteen mandate cad oo ah waxa u qabanaysaan oo ku salaysan dastuurka Puntland iyo ka Soomaaliya oo ay qayb ka ahayd Puntland diyaaradiisa inta diyaarsan iyo inta qabyada ah oo ay Puntland mar walba ay u taagan tahay in ay qabyatirkaas ay qayb ka noqoto hadii la eego. Puntland maadaama sooyaalkaas taariikheed oo muddada dheer soo jiray 22 sano ah iyo ka badan ay leedahay kuma socoto hawadeeda dadka madaxda u ah. waxay ku socotaa siday u ilaalin lahayd hantida ummadan ay leeyihiin ee soo jireenka ah iyo wixii ay soo qabsadeen inay ilaaliso iyo wixii ay tabayeen oo u socdeen inay ku hagto oo ugu shaqayso. dabcan Puntland aragtideeda siyaasadeed way caddahay 1991 markuu dalkan uu ka dhacay burburka iyo dagaalada sokeeye sababay habkii dawladnimada loo maamulayay dadka reer Puntland waxay goosteen in ay dib dama ugu dhicin nabarkaas oo kale. waxay goosteen inay dadkooda maamulaan isna maamulaan Soomaalina ay raadiyaan. intii ka horeysay Puntland intaan la dhisin waxay madaxdii Puntland markaa jirtay ay jeclayd iyadoo Puntland la dhismin si gaar ah in Soomaali intay madal isugu timaado nidaam ay heshiis ku tahay dhisato
markay aragtay inay suuroobi weyday waxay goosteen inay puntland ay aasaasaan maadaama xaaladaas markii lagu jiray ay ahayd xaalad ay u muuqatay in kol dhow aan laga baxayn oo waqti ay u baahantahay saasaa horta saldhigga puntland ay ku aasaasantay laga bilaabo 98 oo 22 sano laga soo joogo wax waa ka qalqaloocdeen ama waxyaabo la rabay in laga helo lagama helin duruufo kala duwan oo jiray darteed laakiin dariiqii markaa la jeexay marna puntland kama leexan oo ilaalinta midnimada Soomaaliyeed iyo nidaam dawladeed oo federaal ku dhisan oo ummadan u horseeda inay dib dambe burbur uga dhicin dabcan dawladda aniga madaxda ka ahay iyadoo kaashanaysa taariikhdaas iyo qoraaladaas iyo hab socodkaas iyo dastuurkaas iyo xeerarka kale u weheliya iyo laamaheeda kala duwan ee dawladda iyo kuwa aan dawliga ahayn ee BRDC ugu horreysay ee aqoonyahanka kale waxay ku dadaalaysay in wadadaas intii la kari kara la hayo iyadoo loola dhaqmayo dadka kale aan reer puntland hayna sidii ra'yigaas ay la qaateen markii dambe 2004 ee federalismka waxa ka dhiman ee qabyada ay ugu wada shaqeyn lahayn waxaan rabaa dadka reer puntland inay si fiican u fahmaan waliba jiilka soo koraya dawladdan hawadeedu kuma shaqeyn karto wixii la quman iskama qaadan karto dariiq loo jaxay oo dastuur bay mar walba ku socota waxaan rajaynayaa marka dadka maadaama aqoonti korodhay aqoon kasta oo la rabo in la gaaro hadday reference lahayn meel ay raacayso waxaa ka dhasha khaladaad badan oo u baahan la soco dabcan arrimahaas waxaan u xusayaa xaaladda dalku maanta ku jiro waa xaalad u baahan dadka waxgaradka mar labaad inay dul istaagaan oo aysan ka leexan toobiyihii puntland ku kallifay inay aasaastaan oo aysan ka leexan toobiyihii ay rabeen inay Soomaali sharafteeda iyo karaamadeeda iyo dawladnimadeeda ku soo celiyaan dabcan wixii tagay qaybna goobjeeg baa u ahaydeen inta aan goobjoog u ahayn dabcan taariikh bay ku haysaa laakiin labadii sano hadda u dambeeyay oo xukuumaddan cusub ay jirtay puntland waxay la soo kulantay caqabado aad u fara badan iyo dalkii oo dastuurkii puntland iyo kii Soomaaliyaba uu u muuqdo inuu ka leexanayo waxay la soo kulantay xilli la goostay in nidaamka federalismka meesha laga saaro waxay la soo kulantay xilli lagu talagalay dalka ciidamadiisa in loo diyaariyo si ka duwan sidii heshiiska lagu ahaa waxay la soo kulantay xilli adduunyada qaybteed lagu qanciyay habka dawladnimada loo maamulayay ee ahaa in hoos laga soo dhiso oo dalku kor isugu yimaado ama waxa loo yaqaan building block laga tagay oo lagu qanciyay wadamada qaybtooda deeq-bixiyaasha si Soomaali u dhisanto in centerka la dhiso si waxyaabaha periphery la yiraahdo loo odbiyo oo loo soo xareeyo oo ay u ogolaadaan dawladda dhexe inay raacaan haddii taas Soomaaliya ay dan moodayso waxay ahayd in laga tashado laakiin wixii lagu heshiiyay waxaan ahayn qofkii isku daya inuu ama dad ku qanciyo dhaqaalahaya ama kuwa sidaas dantooda ku jirta ee dawladda oo dhaqaalo uga helo oo dalka sidaa u maamulo dabcan puntland oo ilaahay duruuf gaar oo ka wanaagsan deegaano badan oo Soomaaliya ka jira leh hadday garan weydo in wixii lagu heshiiyay ay ilaaliso waxa ka dhalanaya mas'uuliyad darro dadka mas'uuliyiinta ay markaas haysaas hayana waxay u muuqanayaan dad aanan fulin wixii laga sugay waxaan rabaa inaan aad ugu dheeraan waxa Soomaaliya ka qaldamay oo ka khaloocday oo aan filayo inay maalmo badan u baahan tahay si dad badan oo aanan arki karin xaqiiqada jirta ay u arkaan laakiin waxaan aad uga rajaynayaa aqoonyahanka iyo hay'addan cilmi baarista
iyo dadka jaamacadaha dhiga iyagu inay intay baaritaan ka sameeyaan dadka ay u sheegaan maadaama waqtigeyguna uu yar yahay waxaan rabaa inaan nuxurada muhiimka ah aan dul istaago si loo ilaaliyo socodka dowladnimada ama dowlad dhiska socodkeeda waxaa waayadan saldhigyada ugu muhiimsan ka mid ah si dadka Soomaaliyeed isu aamino in nidaamka siyaasiga ah uu noqdo nidaam dimuqraadi ah oo mar walba ku yimaada doorasho suuragal ah marxaladaas oo u shaqeysa doorashooyinka caalamka laga yaqaan ee qof iyo codka ah oo raacaysa nidaamka dawliga ah ee adduunka u dhaqmo sida loo maamulo doorashooyinka qofka iyo codka dabcan xilliga Soomaaliya maanta ku jirto oo dhulka badankiisa ama qaybo badan oo waliba gobolada koonfureed u badan ay al-shabaab haystaan iyada oo deegaano ka mid ah magaalooyinka dadka Soomaaliyeed ay ku dhawaaqeen ama Soomaaliland leedahay waa goosanay iyada oo 30 sano khilaafaad hareeyay iyo is-aamin la'aan jirtay waxaa caqliga saliimka ah uu sameeynaya dal kala maqan in la yiraahdo doorasho qof iyo codka ka dhacdo aad bay u adagta maxaa yeelay doorashada qofka iyo codka ah waxa saldhig u ah in ay si midaysan uga dhacdo dalka taasna suuragal ma aysan ahayn ma rabo inaan taariikh badan oo doorashooyinka sida la rabay ama danaha laga lahaa in loo maamulo aan dib ugu noqdo laakiin waxaan rabaa inaan idin sheego qayb ka mid ah inay ahayd in dadka lagu maran habaabiyo in la yiraahdo qof iyo cod ayaan qabanaynaa dawlado badan oo dimuqraadiyadda lacag badan ku bixiyana ay u arkayeen in ay tahay achievement khaasatan madaxda markaas ama safiirada dalka u jooga ay u arkayeen inay dawladahoodii u celin karaan inay horumar ka sameeyeen waxyaabihii u joogeen oo ka mid ah xasilinta Soomaaliya iyo nidaamkeeda siyaasadda dhiskeeda runtii arrintaas Puntland si adag ayay uga hortimid iyada oo ku dhisaysa xaqaa'iq sax ah iyo waxyaabaha ay muhiimka tahay in hawshaas la qabto Puntland kaligeed ma ahan Soomaalida xoogeeda iyo isteediyada kale oo arrintaas way ka mideysnaayeen inay sidaas u qabsoomi karin muddo dheer oo arrinta lagu kala aragti duwanaa waxaa markii ugu horeysay lagu qabtay shir Dhuusamareeb 1 oo madaxda xubnaha ka dawladda federaalka ay isugu yimaadeen si ay xaaladii jirtay u qiimeeyaan shirkaas gundhigiisu wuxuu ahaa in la helo doorasho la isla ogol yahay ayaa u ahaa aasaas ama base lagu dhisayo doorashada xilligeedana ku dhacda dalkana aan u horseedin qalalaas markii la yimid Dhuusamareeb 2 waxaa ka soo qayb galay madaxdii dawladda federaalka madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha xilligaas jiray runtii waxaa anaga nagu jirtay yadadiilo waxaan gelinay waqti aad u fara badan khaasatan Puntland inay arrimahaasi ay si sax ah u qabsoomaan meelaha khilaafka aadka uga jiray waxaa ka mid ahaa Jubbaland caawa maadaama ay xarun cilmi baaris tahay waxaan rabaa waxyaabo badan oo xaqaa'iq oo qarsoonaan jiray inaan ka warramo ay dhici karto dadka qaybtiisa inay ka warqabin dadka qaybtiisa inay dhibsadaan dawladdan federaalka ah ee hadda xilligeedii dhammaaday 2018kii shirkii Baydhabo ay ku galeen waxa ay go'aansadeen in waan ka xumahay laba documentina waa laga saxiixay madaxdii markaa joogtay mid uu yahay nidaamka doorashada dalka midna uu yahay resource sharingka midna uu yahay barnaamij socday oo la yiraahdo security architecture habka ciidanka Soomaaliya loo dhisay documentskaas markay dawladda gacanta ku dhigtay oo sidii ay rabtay ay u draft gareysay waxa u soo baxday inay hesho saaxiibo arrintan la fuliya
waxaa isla markiiba la go'aamiyey in isbeddelkii soo dhowaa koonfur galbeed isbeddel laga sameeyo saaxiibkay lafta gareen ayaa hadda madax ka ah laakiin waxay ahayd isbeddel dhiig ku daatay waxaa ku xigay xaaf oo galmudug ahaa waxaa aad la isugu dayey waddadaa waddo la mid ah waxaa baalashii laga rifay guddoomiyihiisii iyo ku-xigeenkiisii waxaa muddo socday khilaaf aad u adag iyadoo intaa taagan tahay baan anigu kursiga looga taliya puntland lay doortay 26kii January oo ahaa xafladdii caleemasaarka waxaan goostay maadaama aan ku soo biiray masraxii siyaasadda أنا أوجد عكرنانت جرته إن الله إماده وجي أي صورة قلتها هي سومالدو إن أي مرلبات دبوا هذا الشو ووحي كخل دم أي سحده ويوضع صحيح مرت وعن هلك يسوي الردمان مسؤولين تي دلك مدحوينياشي ستيت كمركز جري مدحوينياشي هو دلك صومري برامن استردي دلك صومري xildhibaano wasiiro iyo cid walba aan isdhihi karna Soomaaliya wax tarbi ka tahay annagoo curdin ah oo diyaar garow fiican lahayn ayaan dhabarka u ridinay in shirka baaxadda leh baarlamaanka labadiisa aqal madaxdooda halka aan isugu yeerno runtii fursaddaas waxaan uga faa'iideynay inaan gogol u dhigno oo aan isku dayno inaan waxyaabihii jirnay xal uga raadino dadkii meeshaas joogay qaybtood maanta Puntland bay ku sugan tahay وواحد كم إذا إحنا ويناياشي هره عبد الرحمن فرولان كحسوستا دتك أنتي سكليني مغيهم بعد عقرت أنت كلنا ويا مغلسة جوب جوجا كهيت رنتي فرصة قالئة ومضحدي مركز وليبا فرت كوجودني يجبلان يقلم دوجها يسجر نخسله مدحوينها وقصوا برنجان وح خلدمي وح للدوني إلا صح نسيب وناك dadkii kulankaas fadhiyay ayaa gaarkood u barxaanti kici doona madaxweynihii wadadii laga rabay inuu furo wada hadal nabadeed iyo inuu tanaasulaad sameeyo waxa uu qaatay wado taa ka duwan oo aan xal keenin markii la ismari waayay waxaan codsanay inaan lagu kala tagin laakiin ballan lagu kala tago oo bisha saddexaad ee sanadkaas shir kale la isugu yimaado magaalada Garowe si waxyaabaha mudmadowga ee jira ee loo dhameystiro nasiib wanaag shirkaasi bisha saddexaad ma qabsoomin aragtidii ahayd in wada hadal loo sameeyo la sameeyo darteed wuxuu ku soo islaaday bishii shanaad in halka uu ka qabsoomo isagoo ku dhamaaday fashil taariikhdaas waxaan u raacayaa in la fahmo waxa maanta meesha yaallo shirkii dhuusamareeb haddaan ku soo noqdo labo khilaafkaas oo baaxadiisu ay kordhay aan ka sheekeynayo hore waxaa lagu guulaystay in uu ka baxo madaxweyne xaaf xilkii ay timaado doorasho iyadana dhiig ku daatay waxaa la isku dayay Jubbaland in isbeddel waliba xogtu sida ay sheegayso wax ma qarsoonee la rabay ciidamo aan Soomaali ahayn ka qayb qaadanayaan in lagu bedelo mowqifka Puntland aad buu caddaa markii ay fashilantay arrintaas waxaa la isku dayay Jubbaland in la kala jaro oo gobolka Gada laga jaro oo ciidamadii aan dib ugu soo noqon doono qaranka loo adeegsado inay iyagu noqdaan kuwa fulinaya ajandahaas kala qaybinta stateka Jubbaland shirkii dhuusamareeb 2 wuxuu ahaa kulankii ugu horeeyay oo marka laga tago May 2019 madaxweyne Axmed Madoobe iyo madaxweyne Farmaajo ku dhaxmara halka iyo anigaba si live ah wuxuu ahaa kulankii ugu horeeyay oo aan isku aragno Jubbaland dhuusamareeb waxaan yeelnay si gaar ah aniga iyo madaxweyne Axmed Madoobe iyo madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo
oo mararka qaarkood marka wax qaybta Soomaalida loo fiirinayo si gaar ah duruufaha jira ay noo hareereynayeen waxaan ka codsaday madaxweyne Axmed in uu ka tanaasulo kana hadal wax walba oo tirsanayo hore uu furo safxad cusub uu qaato nabad iyo heshiis uu madaxweynaha iyo marxaladan maadaama Soomaalidu ay daashay oo ay doorasho filayso inaan doorashada ka doorbidno inaan wixii tagay aan ka xisaabtano runtii waan uga mahad celinayaa wuu aqbalay isagoo culays badan iyo duruufo badan oo aniga aanan markaas garan karin oo isaga haysta uu dareemayo haddana wuxuu doorbiday inuu taa ka qaato madaxweynaha waxaan u caddaynay inaan si niyad sami ah oo dhab ah inaan ugala shaqaynayno dalka marxaladda uu ku jiro in laga saaro oo doorasho la geliyo oo aan gacan ku siinayno shaqadaas weliba si hoose si reernimana xataa waa ku darnay diyaar baan u nahay inaan kugu darno nasiib darro kulankii aan la soo xirayay niyad simidaas baan ku nimid dad badan oo Soomaalina waa dhageysteen khudbadii ka dhacday Dhuusamareeb oo aan ka hadlay waxay ahayd khudbad muujinaysa inaan ka tanaasulnay wixii hore oo tagay diyaar u nahay inay Soomaali israacdo u talaasulno madaxweynaha hore u socono meeshii aan ka sugaynay madaxweynaha in uu go'aanka nala qaato wuxuu ku galgashay khudbadiisii shirki oo dhan wuxuu mugdi geliyay heshiiskii wuxuu markii dambe ku soo gabagabeeyay waxa uu la noqon doonaa baarlamaanka isaga oo dadka u muujinaya inuu qoslaayo laakiin ay ka muuqato cara fara badan ra'iisul wasaarihii oo aan u malaynayo kullu 3 sano barkii ay wada socdeen heshiiskaas dhab buu mooday dhinacaas ayuu nala qaatay intii dambe waxa ka muuqanaysa inuu diyaar u ahaa dib ha loo raaco khudbadiisina waxa ka muuqatay khudbad tasaaluxi ah oo uu arko in marxalad cusub la galo natiijadii noqodkiisa iyo baarlamaanka waxay noqotay in 7 daqiiqo ra'iisul wasaarihi xilka loo qaado si sharci darro ah dikraato ay soo baxdo lagu magacaabayo prime minister ku-xigeenkii inuu ahaanayo kusime oo san awood iyo xaq u lahayn oo dastuurka ku meel gaarka ay Soomaaliya ka hor imaanayso dabcan Puntland way ka hadashay laakiin dadku hadalka maalintaas waa dhageystaan laakiin wixii ka dambeeyay dib uma raacaan sida normska ah dawladaha ay u dhaqmaan diblomaasiyiinta qaybtooda ay garanayaan reaction xoog leh ka muujiyeen internationalku arrintaas ay u dhacday laakiin waxa jira wax de facto la yiraahdo hadii laga gudbo dawladuhu shalay kama hadlaan maanta iyo berri ka hadlaan haddaad sharci darro ku timaadid haddaad inqilaab samaysid haddaad dadka leysid ugu dambayn adigu aad wax ka daba qeeliyo weydid adduunka adigu kula macaamilaya ana wax jira oo dadka siyaasadda ba si fiican u yaqaan marka dawladuhu ay la macaamilayaan maamulka ku xadgudubka sameeyay dawladuhu shaqadooda maaha police dalkan ilaalinayo dadka la rabo inay ilaaliyaan sharciga waa dadkiisa waa dadka Soomaaliyeed waa madaxdiisa waa shacabkiisa oo oranaya maya waa khaldan tahay wixii aan ku heshiinay ma haddii aad aamustid de aamuskaas baa lagu la dhaqmaya waxa loo farsiranayaa aamusku inuu yahay inaad raalli ka tahay arrintaas markay ka dhalatay oo annagu si public aan uga hadalnay oo runtii aanan raalli ka ahayn inay saa wax u dhacaan haddana xukuumadda iyo dawladda markaa jirtay ee isku mid noo ahaayeen marka la dhaho habka macaamilka Puntland oo aan kala saarin waqtigeeda ayadana laga xisaabtami doonaa laakiin haddana sharci darradaas iyo ficilkaas raalli kama aan noqon annaga maxaa yeelay waxa aan ilaalinayno oo aan rabno inaan dawladnimada ku dhisno waa shuruuc iyo nidaam iyo kala dambeyn haddii la waayona waxa ku xigo indhaheena hor jooga waxay noqonaysaa meeshii loo maray 19 in loo mari doono dadkana diyaar u ah marlabaad in uu galo struggle aan wax ku kalifay aysan jirin kii horeeto tabaabasho la'aan iyo aqoon darro iyo waxa ma dhici karaan ayaa sabab u noqotay laakiin maanta qarniga 22aad iyo khibraddaas la yeeshay suuragal kama ahayn inay marlabaad ka dhacdo
shirkaas 2 markuu sidaa ku soo dhamaaday waxa mar labaad uu isugu yeeray shirka waxa lagu ballamay 15 in la isugu soo noqdo bishii ku xigtay maadaama ay wax dhaceen waxaan anaga codsanay in wixii dhacay wax laga yiraahdo markay u liidato xukuumaddii meesha ka baxday oo mas'uul ka ahayd fulinta qorshaha heshiiska in la keeno waxaan noo soo baxday inaan diyaar loo ahayn sababta xukuumadda loo ridana ay ahayd in waxyaabahaas laga hadlo oo si jajuub ah dalka doorasho iyaga u qorshaysan ay geliyaan kii saddexaad ma aanan tegin waxaan codsanay damaanaad sax ah oo cid walba og tahay in la yimaado internationalku markay ku guul daraysteen inay taa keenaan waxaan annagana ka gaabsanay inaan shir aanan garanayn wuxuu ku dhammaanayo oo aan ognahay wixii hadda ka horreeyay 2 siduu ku dhammaaday inaanan diyaar hadda u ahayn muddadaa kadib markay taasi dhacday wuxuu codsaday waxaan rabaa dadka reer Puntland inaan si fiican ugu sheego marar badan waxaa maqashaan Puntland waxay diiday in Garowe la yimaado wuxuu codsaday Axmed Madow halka jooga inuu halka yimaado dawladdan waxay aad u isticmaashaa dadka Soomaaliyeed meesha ay ka liitaan oo qabiilka ah oo runtii inay xoqdo ay aad u jeceshahay taasoo dadka aan dan ugu jirin qof mas'uul ah oo marxaladan jooga inuu qabyaalad u gurbaan tago isagoo og 30 sano soo dhaafay wixii dhacay runtii waa nasiib dar waxa halka ka soo baxday in la yiraahdo waxa Soomaaliya isku haysta waa niman daarooda Garowe ay ku soo shirayaan iyaga waxooda xallisanaya runtii waxna qabta ma ahayn wax Soomaali ay wada leedahay in la yiraahdo annaga kaligiina ka wada hadlayna maxaa yeelay dabinkaas mar hore wuxuu nagu geliyay dhuusamareeb markaan joogno saddexdana kaliya nala faqay annagoo moodeyna inaan xal u helino marka aad mar dagaal lahayd dagaal mar labaad waa dhacasnimo yeelata waxaan codsanay meel madal ah oo la joogo inay noqoto inay Muqdisho noqoto waxa uu mar walba Muqdisho u diidaa waad ogtihiin waa meel dadkii qadiyaddan ay wada khusaysay dhan ay goob joog ku yihiin waxaan niri waa inay Muqdisho u noqdaa dabcan internationalka oo mar walba garwadeenka ah waxay u arkeen logic waxaan tagnay kowdii iyo meelaha inayd baan filay September 2020 baan xamar ka degnay iyadoo magaalada xamar iyo dadka deegaanka jooga ay qarka u saarantaa inay qarxdo iyagoo fahmay dawladda tan inay doorasho rabin ay rabto inay ku darsato oo si xoog iyo jajoob ay ku joogto magaalada oo dhan oo cabursan oo mid la hadlay oo jirin ay qarka u saaran tahay inuu dagaal sokeey ka dhaco baan ka degnay ilaahay mahadiis dad wanaagsan oo Soomaaliyeed oo niyad wanaagsan oo arka haday khaladka ka hor yimaadaan natiijada ka dhalan karta inay xarbi tahay xuruubtu markay dhacdana dadka Soomaaliyeed inay yihiin dad nugul oo ay qabyaalad isu bedeli karto iyagoo ka rabay baaqsadaan waxay u noqotay faraj imaanshaheeni waxaana daliil u ahaa sida wanaagsan ee dadku noo soo dhaweeyeen markaan u tagnay wuxuu yiri waxaan rabaa labadiina maadaama igu diideen Garowe saddexdana kaliya shireen nimankii kale oo saaxiibadeen ahayna wuxuu yiri ha imaanina xamar maxamed banaankeeda jiraan anu inta halka tagin waa la hadlay waxaan qorqor baan la hadlay waaraan la hadlay waara alle marka xamar ku sugnaa lafta gareen baan la hadlay waxaan la socdeen wax walba sida isu bedelayaan waxaan ka codsaday xamar markaan tagin inay noogu yimaadaan waxay yiraahdeen annagu iskama imaan karnaa hadduu madaxweynaha imaado yiraahdo waa imaanayna kulankii ugu horreeyay aan isku aragnay oo dadka
qaybtiis inay ilaawsan yihiin baa dhici karta waa inaad dib u raacdaan maalintaan tagnay maalinta ku xigta habeenkeedii annagoo diidan ayuu wuxuu iclaamiyey twitterkiisa la soo dhigay inuu shir jiro official ah shirkaas maan tagin maxaa yeelay heshiisku maan ahayn annagu waxaan nidhi shir gaar ah ama waxa unilateralka la yidhaahdo umaan imaan halka waxaan u nimid sida mar walba lagu celcelinaya heshiis wada jir ah oo dowladda federaalka iyo dowladaha xubnaha ka mid ka ah ay u siman yihiin markii aan aragnay inuusan soo socon waxaan la furnay consultation hay-adihii dawliga ahaa mujtamacii dawliga meesha joogay iyo siyaasiyiintii kaleetay xamar ku sugnayd dhaqdhaqaaqaas siyaasadeed waan kula kulannay musharaxiintii xilka u taagneed oo ay ka mid ahaayeen madaxweynayaashii hore ee dalka oo markaas xasan sheekh uun keliya uu ku joogay dhaqdhaqaaqaas waxaan la kulannay baarlamaanka aqalkiisa sare waxaan la kulannay madaxda baarlamaanka aqalkiisa hoose waxaan la kulannay safaaradaha jooga waxay soo dedejisay taas breshar ah in loo yeero madaxdii kaleeto dabcan wuxuu aqbalay in madaxdii kale ay timaado waxaan rabaa inaan hadalkayna hadalku gadaal baa uga noqonayaa waa tanaasulaa buu yidhi inuusan talaasulin baan rabaa inaan idiin sheego oo uu marka hore aado waddo xiran oo ay suuragal ahayn in derbiga madaxa lala dhaco oo ku khasbanaado inuu dib u soo noqdo ninkii ka shaqeeya waxaan shaqaynayn aakhirka waxa weeye isagunbaa dib u soo noqonaya waxa ay noqotay in laysu yimaado waxaan rabaa maanta maadaama xalkii soomaaliyeed uu cakiran yahay inaan babliga u sheego waxyaabo qarsoodi ah ama hadallo dhexdeena maraya haddaan anigu been sheegayana waxaan rabaa inuu isagoo declare garayo dhowaa beentiis waa kulannay waxaan u sheegay inay xaaladdu adag tahay sida uu ku wado isagoo ka xun inaan engage garayno dadkii mucaaradka ahay magaalada joogay iyo dadkii kaleeto wuxuu yidhi maxaa ka doonteen dadkaas anaa marti ay ahaydeen war hadda caasimaddii magaala madaxdii soomaaliya haddaan nimid oo safaaradihii dalka ay joogaan oo dadkii soomaaliyeed iyo qabaa'ilkii soomaaliyeed ay ku dhan yihiin weliba hal isxaantay oo hawiye xaruntiisii xuduntiisii ah ma waxaan leedahay ha arkinina oo ha kala xaajoonina xalka soomaaliya iyo in dadka soomaaliyeed aan kala irdhoobin waxaan idhi taas suuragal maaha wuxuu igu jawaabay dadka halkaas ka jooga waa dad iska qaylqaylinaya ciidan ayaan haysanaa wax naga qaadi kara wax ma jiro anuu hadde waxa hadalka iga keenay ciidan gadaal baan ka ogaaday waxaan mooday wiilashii aan aqaanayoo madaxtooyada joogjoogi jiro hadda u badnaa reeraha kan degaanka iyo dad noocaasa war ciidanku soo ciidankaan naqaani maaha beelbeesha ahaayo see wax u jiraan maya waa mas-uuliyad baa naga saaranoo dowladda gacan biraan ku qabanayna meelaha qaybtoodna isagoo uga hadlayo 10 qof oo wax diidan waad aragteen baan u malaynaa media aan runtii waxay la noqotay wax mucjiso ah oo aan sax ahayn mar labaad waxay nagu kaliftay inaan idhaahno war walaalow dadkan khatar ha gelin ani axmedow waxaan war ma doorashaa rabtaa hadda wuxuu dhaawaa ay khiyaameen ma doorashaa rabtaa annagaa ku dooranayna walaalow balgal haddaad bahasha ugu bugtid annagaaba ku dhisayna dalkan ka daa meeshaa ku wadid khatar buu ku socdaa habeen dhawadu soo wacay wuxuu yidhi 17 September ma ogolaadeene marka ay tiri waa ku dhisayaa baan ogolaaday waxaan idhi haddaa waddo sax la timid haddaan ku leeyahay baa maxaa mushkilo ku jirta haddii lagu dhiso laakiin markaasna waxaan ku lahaa war processka iyo doorashadaada iyo campaignkaaga laba ka kala dhig processka waa lagula wadaagaa dad baa kursigan damac kaga jira oo xaq u leh inuu noqdo doorasho loo siman yahay processku ama campaignkaga iyo xodxodashadaada iyo waxa isku xirxiraysid de waa shaqadaada iyo hadda ha qaban kuma dhahay damacuna waa shay qof kastoo bini aadan ku jira hadduu arko inuu munaasib u yahay marxaladaas madaxda kale markaan aragnay waxaan ku niyadda ugu dejinay
inay annaga naga warsugaan inaan la nimaano wax qancin kara heshiiskaas aan keennay oo sida runtii hagar la'aanta ah iyo wada tashiga ah looga qayb qaatay madaxdii dowladaha federaalka ay joogtay xilligaas oo ra'iisul wasaare ku-xigeenka ra'iisul wasaarihii waa uu diiday inuu magacaabo ilaa heshiis la gaaro ilaa baarlamaanka aqalka sare markaan tegey cabdi qaybdiid iyo mawsuud ay qabsadeen iyagoo idhahaya daarood baa tahay ninkii nooga keen kursiga ilaa waxba la kala qarsan maayeen waa uu diiday inuu magacaabo ilaa ay heshiis ay la gashaan aan anigu rabo heshiiskii baa si allaale iyo siduu rabo waxaan ku niri war doorasho qof iyo codol lagama gaaro doorasho dadbanna dee waa la yaqaanaa waddadeeda waxa uu ku dhegay in wax laga bedbedelo maxaa rabtaa inaad ka beddeshaan marka wuxuu yidhi waxaan ka rabaa ugu yaraan in 2 meelood laga dhigo isagoo ula jeedo in gedo doorasho lagu qabto waan axmedow ku haleyn karin Kismaayo waxaan irahayaha loo yeelo waxa kale oo waxay ahayd cosmetic aan badnayn tira markii hore ay dhaheen 300 weeye iyo midii taa ka horeysay oo 260 oo 51 ahayd baa la yiri 100 iyo hal laga dhigo inta kale doorashadu waa doorashadii 2006 iyo hadnaankii lagu galay 16 inta markii si la isugu raaco waxaan kala saawirnay madaxdii iyagana doonaysay doorashada oo qodob aad ugu deganaayeen ah in xisbiyo lagu galo ayaan waxaan niri hadaa xisbiyo idinkuna aadaan xisbiyo doorashada dad isma galayso xisbiyadu waxay imaan doontaa markii doorasho toos ah la aado idinkuna ka tanaasula negotiation kaas inta badan aniga galay dhinacyada u kala dab qaaday heshiis dawladii xubnaha ka ahaa iyo dadkii dawladnimada rajada ka qabay xukunka iyo cid walba iyo internationalki aan la wadaagano la isla qaatay buu ahaa qodbadiisi baarlamaanka wuxuu yiri Saciid baa qorqortay iyadana waa nasiib darro kale bahashi hal bil aan u fadhinay xamar si loo sharciyeeyo madaxweynaha iyo Cabdi Xaashi isma salaam jiray isma arki jirin mana ogoleen inay labada aqal isu yimaadaan waxaan ka codsaday inaan shaqadaas qabto waxaan ugu tagay Cabdi Xaashi gurigiisa isaga iyo labadiisa ku xigeen waxaan ka codsaday wax kastoo jiro hore inay laqaan maanta Soomaali u hiiliyaan heshiiskan ay wax ka ansixiyaan labada aqal oo isdiidanaana ay is ogolaadaan mursal baan la hadlay waa isla qaatay bacda shidda wa tacab waxa halka ka soo baxday niyad samaan dadka Soomaaliyeed oo dhan iyo calool furnaan kulamada gaarka aan yeelanay isagoo dareemaya inaan anigu dhisi doono wuxuu ila wadaagay xogo uu u arko dalkan inay sahlan tahay inuu marrabaad ku soo noqdo oo uu haysto ciidan iyo lacag iyo xoogag wadaniina oo meel walba u jooga oo ay ku jirto Puntland waxaan ku eray xirfad iyo xeeladaada hadda adeegsanaysa waa hawl adiga ku taal laakiin processkaas uu naga khaldamay hadda intaad processkaas martid xeeladaada iyo xoogaaga ana xoog kulama talinaaye aad wax ku qaadaysa ani ilama aha inaan Soomaali xoog u qaadaysa garashadeeda laakiin wixii xeelad ah anigu hadda kuguma haysto waa ku furanta mar allaale markaan shirkii ka tagnay oo gudiyadii la magacaabay ayaa horta xaaladii la sheegay soo baxday gudiyadii la magacaabaa waxa ka soo baxay qaylo waxa kale oo ka soo baxay gado ayaantii markaan tagnay 2 maalmood ka bacday ciidan kale hor loo diro waxa ka soo baxday niyad xumo ah heshiisku inuu ahaa wax la iska madmadoobeeyay maxaa yeelay hadduu heshiiska dareenayo Saciid baa iska qorqortay ma dheheen heshiisku warqad la iska saxiixay oo marxaladda looga gudbaayo un bay ahayd kriteeriyadii lagu heshiiyey habkii dadka loo xuli lahaa wixii oo dhan buu hareer maray
markii aan kala hadlinay oo niri war sidatan wax laga bedelo wuxuu diiday in la isu yimaado wuxuu yiri heshiiskii waa dhacay 8 qof soo dirsada annaga niyad wanaagii markii ugu horeysay afartii ugu horeysay waan magacaabay afartii markii la magacaabay oo qayladii ay badatay oo dadkii musharaxiinta ay annaga naftarkeena nagu eedeeyeen inaan u daaroodaynay oo ninkii hoosta wax kala heshiinay oo wixii aan u sheegaynay oo ah process sax aan khiyaanay oo gudiyada soo baxay ee noqdeen niisa iyo maxaa la yiraahdaa iyo xoog wadaniin iyo wax kale oo aan garanayn runtii annaga waxay nagu noqotay xaaje inaan ka jawaabnay aad u adagtay waxaan rabaa inaan inii sheego kulanka la hadalka isniinta aan sameyn jiray waxaan u joojiyay wax badan oo fool xun oo dadka niyadiisa xumeynaya inaan sheegan aad u diidana oo aan ogahay si u dhacaan maxaa yeelay nin weyn hadda meel soo istaagto xaqiiqada ka hadasha ama inaa ka aamusid waxa socday wuxuu damiirku isiin waayay sida waayaan dama la caadaystay ee ah in wasiilada la gaaro kaliya oo bulsho vulnerable ah oo iyada dhan u baahan in la dhiso loo danqado aan laga fakarayne xukun aan la rabin in bulsho loogu shaqeeyo sababta loogu orday ilaa hadda wax aan fahmin lahay ka mid tahay propaganda iyo qaab shaqo oo la aaminsan yahay inay suuragal tahay ragga mas'uuliyiinta xamar ka mid aan weydiiyo waxaan eri war xoog iyo jajuub maxaad ku xukumi karaysaa wuxuu yiri al-shabaab dalkay ku xukunta oo sida al-shabaab haddaan noqotaan maxay tahay waxa raadinaysaan ilaan dastuurkeenu argagixisnimo iyo xoog iyo jajuub in dad lagu maamulo ma qoraay ummadda caqliga saliimka ana diyaar uma ah nolosha dabiiciga ana taas ma keenayso runtii waxaa ka soo baxay aragti aad u adag markii shirkaas uu istaagay oo dood badan laga galay waxaan codsannay in shir kale la isugu yimaado waa diideen waxa soo martay 7 bisha December shir la yiraahdo International Somali Partnership Forum oo xamar ka dhaca ayaan waxaan isniin waa fursade shirkaasana lagu casumay markii aan madaxdii dawladaha iyo isla hadalna oo niri shirkaas aan isugu nimaano si aan ugu lafagurno waxa jira dawladdii way joojisay waxay tiraahdaa ha imaanin internationalkuna si fiican bay ogyihiin habeenkii annagoo xirxiran baa la soo hadlo madaxweyne Axmed Qoorqoor xamar joogana waxa la yiri inta xamar ka tagtid oo galmudug tagtid suunka ka soo gal hadda xamar uu joogaa suunka meel kasta laga gali karaa waxa la yiri xagga tago suunka xagga soo gal annagana ha imaanina waa iska aamusno waxaan khilaaf ilaa wix kasta ka hayso khilaaf buu wadaabay dadka caamada halka fadhiyo oranayaan wal haday khilaaf dhalayso kaadi badan waa loogu gol badayaa baa la yiri bal iyadan aan dhowrno ra'iisul wasaariyaha halka yimid oo la soo diray intuusan imaan markay taas dhacday baan iri Qoorqoor hadda xamar isku arki weynay adiga garow iguma madaxdu ay maqlaysaa been haddaan ka sheegay markii la maqlay inuu halka imaanayo ayaa isagina lala hadlay waxa la yiri baaqo annaga tagin ra'iisul wasaariyaha halka yimid ra'iisul wasaaraha Qoorqoor ma uusan imaan ana imaanay buu yiri isaguna ha baaqdo halka markuu yimaadana habeenkii ugu horeysay wuxuu yiraahdaa 8 qof aan rabaa inaan ka qaato oo diyaaradda la raaco wax kale ma ka hadlaysaa maya markaad 8 isiisid ka bacdi aan ka wada hadlayna waxaan 8 hadda diyaarad kula raacday anigu hadda ma hayo wixii damo dhacay anu ka hadli maayo halkaas hadda idinka goob joog ahaa galata halkaas marka ay marayso waxaan mar labaad aad looga shaqeeyay in la xalliyo halka waxa yimid internationalka dad aad u far badan ay yimid waxaan niri waa yahay madmadow baa jira waxbaan tabanaynaa haddaan wax tabanayno inta aanan doorashada hore loo gelin hal la isu yimaado oo tabashada hal la is dhageysto xujadeena waxay noqotay xujo viable ah hal la is arko ceeb ma aha waraan saragno Soomaaliya wada joognaa meel kale wada joogno internationalki markay kari waayeen
madaxweynihii oo yidhi arki maayo haddii sideedii keenin oo bahash isjiijiidantay oo internationalka ay ku soo ururtay horta sideedda keen iyo horta shirka qabo isagu ma tanaasuli jireen sidaynu aan tanaasulno waxay annagaa tanaasulnay sideedii baa haddana sheegnay waxaan nidhi shirka haddana xamra lagu qabto wuxuu yidhi xamar laguma qabanayo xaggee lagu qabanayo markaan nidhi xamar ha lagu qabto oo sideedii soo saarnay buu isagoo waxbana ogeysiin wuxuu yidhi dhuusamareeb iyo bisha meeqahe 15 maaqa waxay ahayd dhuusamareeb baan ku qabanaya shirkii oo la tashi una la gelin waxay nagu kaliftay annagoo xog badan oo og xaaladda dhuusamareeb ay ku sugan tahay amni waxay kaliftay inaan mar labaad annagoo maalinta aan baxayna habeenka ka horreeyey 12 hoobiye lagu dhuftay dhuusamareeb inaan sacrifice sameeyo aniga wafdigii la socdo mar labaad haddana aan tagno kii joogay oo ku dhacday hadda waaba joogay laakiin kan la yiraahday imaw ka war oo la leeyahay 10 kilomitir loo jira madaxda ila socotay dadkii la socday ka warqabay tension ku wuxuu ahaa iyo ciidamadiina la socday markaan meesha tagnay waxaan u tagnay madaxdii iyo madaxweynuhu iska qoslaayay anigu hadda ma tafaasiileynaaye inaan waxba dhicin loo malaynayo marka talow waxaan isir wax oon ula kac loo tuuray ma ahayd waxa kan wax ka badan ilaa ma ogtahay waa inuu jiraa hadday wax dhacaan waa inuu jiraa tension security iyo diyaar garow ilaa saacida ka mid dadkii la socday ka warramaya mararka qaarkood waxaa la yidhi classification waxaa la sheegaa 30 sano kadib laakiin Soomaali haddaan nahay week ka bacdi inaan sheegno we can't waxa aan aragnay waa in la sheegaa lagama aamusi karo shirkii dhuusamareeb la isugu yimid haddana markaan aragnay tensionka dadka Soomaalida haysta iyo waxa aan ka baqayna mar labaad inay Soomaaliya ka dhacaan iyo kala taagnaanta jirta iyo anoo og siduu u fakarayo oo inuu dalka xoog ku qabto siday la tahay mar labaad waxaan goostay mar haddaan imid issueski kala waa iska dhignay 3 issue baa lagu soo reebay 3da issue inaan kala soo noqon iyadoon xal laga gaarin labada issue laba kamid ah dadkii ka tabanay xamar bay joogaan in laga xajooday waa u diiday waxa ay haddii dadka kala diideen de kaliya uma doodi kartid waxaan rabaa inaan wax yar dib u celiyo halkaas waxaad ogtihiin halka waxaan ku qabanay heritage oo xilligaas in annaga hoosti garayno runtii markii ugu horreysay Soomaaliya lagu qabtan ay tahay cadadka dadka imaan kara Soomaaliya markii la madaxda Soomaaliya imaanaysan aan garan karo culayska ay la imaan karto waxaan ka doorbiday inay halkaas fursad ku jirto dadka Soomaaliya isku arki karaan mar labaad wixii khaldamay lagu sixi karo aysan ka duwanayn go'aankii aan qaadanay 26 January 2019 runtii waxaan dawlad ahaan mishinada awoodda dawladda leedahay dhan u jihaynay in shirkaas uu u qabsoomo muddo yar waliba iyagu nagu wargeliyay sidii la rabay inuu qabsoomo waxaan uga mahadcelinayaa bulshada reer Puntland iyo dawladdoodaba inay si sharaf iyo karaamo leh ay shirkaas u qabteen waxaa halka yimid dhammaan madaxdii Soomaaliyeed marka laga tago madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha iyo dhowr qof oo cudurdaar ku maqnaa labada state kamid ah waxay noqotay fursad lagu wada hadlo waxaan qirayaa maanta madaxda halka timidna ay qiraysaa nimanka madaxweynayaasha hore ahaa iyo ra'iisul wasaarihii hore iyo musharaxiintu in ay muujiyeen dabacsanaan iyo inay muujiyeen wax walba oo jira in la xalliyo inay diyaar u yihiin waxaan halka ka dhacay shirarka caadiga ah marka laga tago iyo gaargaarka ah shir ay isugu yimaadeen dadkii dawladda matalayay oo ahaa 3 maamul goboleed prime minister ku xigeenka iyo labada speaker iyo madaxdii u tartamaysay xilka madaxweynenimada waxaana weheliyay madaxweyne Cabdiraxmaan Faroole intaas waxay gar dhigteen inay u baahan yihiin maadaama si doorasho u galaan inay helaan process
furan tala kuma haysano walow aan jeclaan lahayn inaan ka qayb galno laakiin kuma haysano waxaan rabnaa qodobada mugdiga iyo shakiga naga jira in laga shaafiyo shirki labaad wuxuu ahaa intii dawladda matalaysa gaar isugu nimid waxaa noo muuqata inay gar tahay doodoodu inaan ka jawaabno waxaa soo baxday jawaabta annaga aan siino inay kaafi ku ahayn iyadoo ay 3 maamul dawladihii xubnaha ka joogaan labadii speaker joogto ra'iisul wasaare ku-xigeenkii joogo waxaa halkaa ka soo baxday inaysan ilaa maxamed cabdullaahi farmaajo la soo qanciyo maahan inay tala kala jireen waxaan halka ka dirnay speakerka aqalka hoose ra'iisul wasaare ku-xigeenka iyo madaxweyne qoorqoor inay tala ka keenaan xaggu ugu tagay meeshaan tala ka sugaynay madaxda halka waxay joogeen wax 2 way ku dhow inna shirkaas socday inna hawshaas u joogeen ergada markii la dirana waxay dhaheen inta ergada noo imaanayso waa sugayna culayska ay leedahay la garan karo in annagana noo leedahay iyagana u leedahay in 2 week dad mas'uuliyiin oo protocolka ay leeyihiin u baahan yihiin aad mareynaysaa inay marti noo ahaadaan sidaan u sugaynay inuu maalinta jimcada jimcay ku beegneed baan filaynaa noo yimaada habeenkaas xaflad baa Puntland lahayd waxa ay timid fariin inuusan imaan karin duruufo jira awood isaga maana wada hadal laakiin waxaan eray shaqadii loo diray hadduu soo qabanayo imaanshaha ma aha caawa xafladeeda muhiim maahane birri baa noo yimaada ama fariin kale oo sax noo soo diro isla habeenkii markaan shir ka soo baxnay waxaa la qabtay press conference lagu cadeynayo in doorasho la aaday dalkii meeshaan sugaynay jawaab shirka markaan ka soo baxnay baan warkaas maqalnay waxaa la yidhi clipka waa la hayaa laakiin lama sii deynaa ilaa birri maxaa loo hayaa waa yahay maalintii ku xigtay ayaa la sii daayay isla subaxnimadii in dalkii doorasho aaday meeshaan talada sugaynay farsamooyinka doorashada dalka socda horta saasay u ekaayeen markay taas dhacday ayaa inaysan soconayn la arkay ayaa shirka dhuusamareeb dhashay laakiin ku talagalku wuxuu ahaa waxaa la yidhi labadaasna iska maqnaadaan 3 kalaa la qabanayaa iyagaa imaan doona hadday imaan waayaanna war ma hayaan xoogaa lagu keena wararka aan helayn weli annaga riyaan u haysanaa waxaa waddanka ka socda shirkii dhuusamareeb baa yimid ku noqon maayo waa aniga ka sheekeeyey markii gada la soo gaaray ayuu dhaqaaqi waa shirkii guddiyaha un kala saaray madaxweynaha u tigaani gada maxaa ka rabtaa iisha waan kaala shaqeeyaa markaan maalin iyo ziyaado nerfiska waxaan qabtay garan waayo aan arkay hadda inaan cid kale u maqan aysan jirin ayaan waxaan goostay inaan si sacrifice arrintaa uga shaqeeyo waxaan idhi gado waxaa ka rabtid iisha waxaa soo baxday in uu gado inuu isaga maamulo ay rabto waxaan idhi waayahay adiga maamul laakiin formalo horta waxaan idhi gado reerka ka dhalatay maanta waxba qaran ma reexaan ma waxay rabaa inay ka go'aan Jubbaland mayuu yiri anna ma rabo iyagana ma rabaan maxaa rabtaan marka inaan doorashadaas iyo maamulaan rabnaa waxaan idhi waayahay formalo aad ku maamuli kartid gadana ay uga tirsanaanayso Jubbaland aan ka fakaro maxay kula tahay buu yiri ani markaas ilaahay baa i waafajiyay qalin warqad ma haysan waxaan ka soo shaqeynaa markaan arkay waxay akran yihiin waxaa eri gado dib u heshiisiin baa markii hore la horta la galo oo Axmed Madoobe taagnaa horta dib u heshiisiin maamulka la soo celi ciidanka la saaro waa process dheer isagana oo I don't know sanad iyo ka badan qaadan kara waxaa eri haddii dib u heshiisiintu ay saa u adag tahay laba aan kala saarno Garbaharey in fikradaas marka halka joogno waa la develop gareynay Garbaharey issue iyo gado issue waxaa eri
maamul gobol marka cidda hawshaas fulinaysa awal la ogeyn waxaan idhi maamul goboleedyada hadday hawshaas fuliyaan oo iyagu intay u diraan guddi dib u heshiisiinta bilaabaan lana kaashadaan cid kasta oo ay khusayso oo aysan ku jirin maamulada ay ku jirin Jubbaland ay ku jirin arrintaa ka war waxaan qaadanaynaa baan idhi qorshe ah in dib u heshiisiin guud la furo lagana bilaabo Garbaharre maadaama doorashadii socoto oo Garbaharreyna aysan ka dib dhici karin doorashada kale oo caqabad noqonayso waxaan idhi muddo bil ah Garbaharre waa lagu dhameyn karaa si loogu dhameeyo maayarka hadda jooga gudoomiyaha degmada hadda joogana waa laga qaaday kii hore Axmed oo laga tuuray oo intii la xirxiray oo waliba Etoobiyaanku xirxireen ay ka tuureenna isna lama soo celinayo Axmed wuxuu taagan ka hal soo celiyo kaas sharciga iyaguna kan wada labadaba laga qaado mid community-ga isku raacsan intee keenaan guddigaas ha u dhiibaan warqadda marka ha soo qorto Jubbaland oo sidaa sharci ku noqdo marka hore waa la fiicnaatay waayahay buu yiri waxaan shaqadaas ma ku shaqeeyaayo raalli ma ka tahay buu yiri curfi Soomaaliyeed baan raacay mareexaankii joogay Dhuuso Mareeb madaxweyne ku xigeenkii wasiirkii arrimaha gudaha iyo wasiirka ganacsiga aan u yeeray horta waxaan u sheegay prime ministerka waxaan u sheegay qorqor waxaan ku iri arrintan waa ay mudatay saanaan rabaa inaan u galo xeer kale ila dadkii dawladda iyaga wadanka madax ka ah ma ku xad gudbi karo waxa ay farsamo kale aan galaayay waxay dheer hadaa wax xalinayso waxa kama qabno iyagii baan u yeeray qaarkood waa ay eedeeyeen inaan maaragtay Axmed oo u hiiliyo waxaan ku iri eedaha noo dambeysay hadda aan xalin wadadaan arkaa in wax lagu xalin karo maxay la tahay runtii raggu aba ku kala qaybsanaadeen laakiin si unanimous wuxuu yiraahdeen waa ra'yi fiican waana kula qaadan waxaan in ila qaadateen madaxweynaha uu tago sheegay ana ballanta xataa soo qabtay waxaan madaxweyne inaan iyaga arkayna u sheegay iyagana arag baa inta kuma ekaane waxaan la hadlay Cabdirashiid Janan oo jooga bolad xaawo waxaan ku yiri waxa aad raadinaysid waa degaankii maamulkiina xukumayeen oo xoogni laga saaray waa oga laakiin waxa ka maqan hadaa xoog ku soo ceysan kartidna waa wax la gartay hadaa xoog ku ceysan karna xaalad waa lagu ceysaday niyo bahasha siyaasad baan ku dhuganaynaay ciidamadan iyo waxa kan dad inay naga dhintaan muhiim ah ka daayay ra'yi siyaasadeed baan wadnaay waxaan ka codsanayaa hadduu hirgelayo inaan la qaadaysin waayo Axmedoobe waa madaxii Jubbaland laakiin qadiyadu waxay ka dhex taaganta reer Gedo oo waliba markii hoos loo sii fogo reer guri iyo wax kale aan garanayn u kala baxay khatarteeda leh ma garatay oo is haysta waxaana uu sheegay waxa is haysta haddii aad dhihileed ogaadeen meesha muuba jooga Gedo waxa isku haysta waa raaskaagi dagaalka dhacay dadka effect gareey waa iyaga isagina waa la hadlay waxaan kaloo la hadlay madax kale oo Axmedoobe la socotay oo fartaa ka mid yahay iyo wasiiro iyo gobornarkii Gedo Axmedoobe oo dowladda Jubbaland u ah oo meesha jooga kulligood waxaan ku qanciyay inay arrintaas qaataan markii isagu aqbalay waxaan u tagay Axmedoobe waxaan ku iri wixii badnaa oo sheegi jirtay oo carada ka muuqatay yadii raggaaga inaan liqdaan raba tan inaan la qaataan anoo kiligay aniga iyo wasiirka arrimaha gudaha ee Puntland baa wada tagnay wuxuu yiri hadaad xal keenaysaan dadkii aad ay khusaysan aad la hadashay sida aad sheegaysid oo Cabdirashiid waa u sheegay culayska aad ku haystana qayb anaa ka dejiyay dadka waa engage garay wuxuu yiri waxba kama qabo habeenkii waxaan ku seexanay bir subax shirku inuu bir dhamaanayo oo la saxiixayo draft gudiyaan saaray farsamo ah waxaa la diyaarinayo subaxnimada maalintaas waxaa in la qorsho ahaa in la diyaariyo communique subaxdii markaan imid buu aniga iyo Axmed Qorqor wuxuu yiri waa in raba waa u tagnay wuxuu yiri wixii aan xal isku ogeyn ma shaqeyn karto nimankii gada jiray reetolka yaha qorshahaas ma ogola warqad Axmedoobe saxiixayo ama wasiirkiisu ma qaadanayaan waxaan ku iri madaxweyne shalay
reer gado intay ninkaan xukumi jiro mudday dawladda ka tirsanaayeen oo qayl kama jiri qayladan waa khilaaf iyo qorshahaaga hadda aad u qanacsan tahay dadkaas waxa ku filan wadadaasaan qaatay hal raac ma yiri waxaan u baahanahay inaan laba wiil ka bacdi isku soo noqono waxaan ku aaminay taas suuragal ah markaan arkay inay kala taagan tahay ra'iisul wasaaraha la joogo waxaan bal halkaan noo hakiyo anagu aan shir aniga iyo ra'iisul wasaaraha iyo Axmed Qorqor aan meel wada fariisanay waxaan ku iri arrintan xal bay u baahan tahay anu horta waxaan iri madaxweynuhu xujo ma ahan ani waxa ay soo baxday heshiiska in la saxiix maro laakiin intii aan wadi karnaa wadayna Axmed aad buu wuxuu uga xumaaday in mar labaad galmudug shir la isugu yimid inuu burburo runtii waana painful maxaa yeelay deegaanka iyo dadkeedaba ceeb bay ku tahay waxaan idhi dadaal intaan wadi karnaa wadayna subaxdii 10 meelahaas ahayd ilaa habeenkii dambe aroortii 2 mise 1 aniga isaga waxaan ku jirnay dadaal inaan qancino madaxweynaha أنا وحني أحمد بان إسكو دينا قنعيه هذا هو المدحوني سوقني دادال بدن بان سميناي مركلية وحا سعون ويدي إن قدقو أو مقعابو أو إذا جبلان مقعابين أما دولة إيه مقعابو ما هنروح كلام جرام بير أحمد وبشركة سنتو نيرس كون نقضي ويرو أنا إسكا كيف الصحة دي نينك لو تلنا يا هاي ما أنت نينك أسكور وريجا بس أنا أكو عاجزيه ميدي هوا أركت ما شركة كعروضي بالليري ما أيسن جرينا واحد يرى تايم markii uu baxay oo isku dayno madaxweynihii waxaan soo marsiin weynay degmada Garbaharre maayarkeedii inuu farax ka qaado oo noo adkaato aniga maamulo ma ahan cid kale maamulo shir luqad saas shirkiina qorqor waska kala tagnay gurigu igu yimid habeenkii anigu disappointed baba noqday wuxuu yiri niyo waxaan rabaa inaan shirki la badbaadiyo sida lagu kala tagin maxaan kula qabtaa Axmed Madow ila aad weyn waa israacan Axmed waan tagnay waxaan ku iri waxaana jiray maxaa tala wuxuu yiri hadee laba mid ani ii keenu yiri gado Jubbaland ma aha waxba kama qabo yiri ciduu rabo magacaabo madaxweynaha warqada soo diro inuu isaga maamulkiisa si muaqada oo maamulay haday Jubbaland ka tirsan tahay wixii ugu yaraa oo aan aqbali karo wax weeye gudoomiye degmo oo annagu aan soo select gareynin ya dadkii deegaankana aysan doorashooda sida caadiga ku soo bixin oo sida golayaasha deegaanka loo sameeyo oo cid kale keentay waliba dadka meesha joogo keenaya waa dadkii madaxweyne Cabdullaahi Loyalka oo ahay gudaha joogay أنا حتى مر هوس وأولها الله عن قوي ورنك إيمانا أديك كان زائر حتى هذه يقولي أرجعنا ما مش فورمولا ذا الرعن إلا أنك سكر أو مقعاونا ماله دولة الدحام مقعاودنا عيب بكوتها يودي نظامك فدراليزم كماش كبح جدي أن درنا الشرع وما هيستئنوا مقعاو حأم بهنا إن أرنتها سهل جدا هبنكي marka Axmed kan nimid oo aan nimid oo nimankii kalena nagu daaleen waliba madaxweynaha Hirshabeelle iyo gudoomiyaha gobolka Banaadir waxa uu madaxweynaha dulqaadka ay muujiyeen meeshiiba inay shaqahiina soo baxdo maxaa yeelay niman daarooda iyo nin marti loo yahay umba ordaay gada kaliya wax leeyahay horta dalka la rabo leeyahay hal la xaliyo dadka ay sheegayaan Garbaharre xalin weyn ina ogaataan raba wuxuu yiri waa tagay waxaan hadda madaxweynaha haduu yiri waa tagay anagu farq kuma dhigi karnaa markaas haddana wuxuu damcay sida loo tagay in anaga la qaadno warmatiyood la soo saaro waxaan hadda waxaan dhahnaa anaga ma garanayno inaan ku eedeynana ma rabno oo dhaano isaga diid marka waxaad tiraahdaa wada hadal socda shir dama la isugu soo noqonayaa nin ayaantan soo baxo dubal ugu sheegaya habeenka hadlay wuxuu ku wareegay waa la sheegay oo aragtay ajaa'ibka adduunka maalmo wax la arkayaa dubba adiga habeenka dhawaaqay gabdhaha arkiis wuxuu yiraahdaan baa la yiri ay waxa aadaanka hore isku kaya
markuu dubbo dhawaaqaas ballanta noqotaa la yidhi saqda dhexe wax uu ku hadlayo aan la garanayn marta dhawaaq la istaagay masaa'ibka soo baxay habeenkii waad wax badan oo aan hadda aan garanayn uu dhuray madaxweynihina waa tegey intii uu joogay waxaan ku idhi war madaxweyne soo ma ogid 8 February inay soo dhowdahay oo deadline-kii doorashada uu soo dhow yahay maxaa dhacay yiri waxaan idhi soo ma habboona inta ka horeysa in at least heshiis la gaaro processki uu socdo warqaddii xasan sheekh uu qoray oo kaleeto oo ah in dowladdan ay tahay dowlad aanan waxyaabaha masiiriga oo qoran tahay waan u malaynaa internetyada inaan ku aragteen oo muujinaysa inay dowladdan ay doorashada maamulayso qor warqaddii xataa koobiyaan watay annagoo ajendahay noogu jirtay lama isa gaarin gadaa garbaharri aan dhaaf weyn warqaddaana qor horta warqaddii iyo markuu maqlay iyo 8 February oo wuxuu yiraahday anigu waxaan isleeyahay danigayga soo waxaaba ku dhalisay inuu tago 8 February inuu proof gareeyo inay 8 February wax la jirin wuxuu yiri 8 February wax la ma jirto dastuurka iyo ogol waxaan dastuurka intee ka ogol yahay baarlamaankaba midka bedel midka maxaa inta mid kale ka imaanayo waa sii jooga horta meel hadda iska manaanaanays ma jirtee kusimo waa okay laakiin ma qaadan karaan qaraaraad masiiriya hadda inaad dhahdid shuruucay ansixinayaan ceeb weeye dowladnimada ceeb ku tahay aflagaad weeye adiguna suuragal maaha intii xashan sheekh gartay ma garan weyd intaa samee waa u baxay caradii iyo doodii aniga aan u arkaa inay naseexada u tahay waatuu baarlamaanka yiri siciida waxaan iska qorqorin jiray aniga waxaan isleeyahay ninkan marna lagu xijinayo waa daarood la leeyahay marna la leeyahay dee maamul goboleedka u horreeyay oo u weynaabaa tihiine roolkaaga qaad saas odayada iyo dadka waxgaradka iyo simada oo dhan markay la soo hadlaan maaragtay la leeyahay warmaandhow soomaali meel ku kala tegaysaa ka talin waxaan isiri bal intii karaankaaga adadaan waa tegey 8 markii dhaafay oo maalin iyo laba iska maqanto shaqadii iska socoto way soo wacay waa wada hadalnay haye 8 maxaa dhacay yiri waxa ma dhicin haye ah 8 waa u jeedaa inay waxba dhicina ama nimanka ragga hurdaano markoo sidoodii ka caamaayro gidaarada ka daatan waxyaab kale habeenkii dhow markii waxa dhaceen shalay miyaan soo wacay wuxuu dhihi waxa tirimo yiri nimankii haween gidaarada ka soo laabay wax soo daatay ma aragtay yiri waxa yiri ma arag ciidamadan oo dabaabaadka wadana ma ogeynay horta gorgorkan la sheegay anigu waxaan ku maqlay maalin la yiri galmudug la keenay oo dagaal ka socday gada in la geeyana waa maqlay goobta saddexaad ay ka dagaalameen waxay noqotay daljirka dahsoon horta inaad saas inaad u kood garaysaan aan rabaa haramcad iyo gorgor meel kale ay ka dagaalamaan male aniga waa research garay waxaan ciidanka intee la egyahay waxaa la ii sheegay ciidamada turkidu tababaray iyo kuwa waxaa la isku dardaro ciidan hadda aniga aan sheegay dad ka nixinayo tiro badan oo dabaabaad wata hadda hal maalin shabaabka ma aadin wadada afgooy iyo xamar isku xirto waa xiranta hurwaa lama tegi karo war gorgorkan hadday dadka wax u qabanayaan jidadka maxay u furi waayeen niman meelay ku jiraan oo cid arag oo ani hadda wax lagu akhriyay ma garanayo hadda awal waxa la Soomaalidu saas bay yeeli karto hadda dadka reer Puntland saas dhahan laakiin ogaada Soomaalida naqaanimaa ilaa al-shabaab si ka dhigto waa la arkay Soomaali Soomaa inay isqarxiyaan oo dadka qeyracaan nimankan aniga sida loo tababaray shaki weyn ay jira marka wax naxariisa oo ay leeyihiin ma jirto horta dalka meesha ku socdo waxaan rabaa inaad si fiican u fahamtaan dadka waxa xun looma sheego beled laakiin waa qarsan weyn run aan sheegayaa maxaa yeelay haddaan ka digi weyno oo dalkan dagaal sokeeyo uu ka dhaco oo qabaa'il la isku laayo oo xoog la isku sheegto oo dalka dabaabaad la jiirsiiyo annaga dambiilayaal noqonayna nimanka internationalka hadda dhahay 17 September hal ixtiraam 17 September alamtara soo dhaaftay 19
february ka dambeysay habeenkii markaan doodayna wuxuu dhahay indha cadde oo aniga waxa ka yeersiiyey hadda aanan garanayn ilaan maanta runtaan iska sheegayaaye ayaantii horena wuxuu yidhi adsabaan ku tukanayna maalintii dhaweydna waxbuu sheegay labada marba waxbaa dhacay ani ay dhoonna ciddu u shaqaynayo laakiin realityga marka loo hadlo waxaan ku idhi bal daljirka dahsoon ninka wuxuu rabaa hadhow cidda ka yeersiisay ilaan madaxdii intay hadasho hadday dhihi lahayd dowlad ma jirto madaxdu waa hadlaysay maalintii ka horreysay meeshay maraayeen waxay lahaayeen mudaaharaad biisi fulaan rabnaa mid nabadeedaan rabnaa ninkan wuxuu yidhi haddaaba samaysay gartaye kii maalinnimadii dhacay oo ra-iisul wasaarihii 3 sano iyo barka ra-iisul wasaaraha ku ahaa oo calankii saa u lulaaya xabadda lagala daalay maxaa ku fasiraysaa wuxuu yidhi ciddii sharciga ka hor timaata tallaabaa laga qaadaya horta madaxweynaha meesha noo fadhiya literally kolle ari waa iga geesan yahay intaan hubo laakiin geesinimadaas tii la rabay miyaa mise mid kale miyaa idinkaa ka jawaabi doona maxaa yeelay geesigu waa midka xaqana ka hadla xumaantana dadka gacanta ka qabta ma aha nin ku dhiirada wax cirib dameedkeeda uusan garanayn runta markaa inii sheego waxaa hadda xamar ka socda waxaan ka baqayaa inuu dagaal sokeeyo oo hor leh iyo qax hor leh dadku waxaan hadalkay kusoo gabagabeynaya ka codsanaya dadka reer muqdisho iyo madaxdooda inay intii ka fogaan karaan in la geliyo dagaal inay ka fogaadaan godin yahay ima goyseen haddaan gabalkay kugu jirin baa la yiriyo madaxweynaha kuwa degaankiina garab taagan oo falsafadaas la qaba oo inay dalka xoog ku xukumaan raba dadka qabyaalada ha u kala saarinina dad mararka qaarkood caadifadu qaadaysa arkaya dadaalka aan ku bixinay inuu dagaal dhicin oo dadku waxay heshiis ku yahay ku dhaco oo khatar kasta u wajahnay waad garanaysaa mararka qaarkood meelaha aan tagayno runtii walwalka iyo ragga ila jooga ka sheekeyn kara waxba la qarin maaye magaaladii xamar haddii laga wisuusay oo laga shakiyey oo la yidhi cuntadeeda ha cunin oo waa sunbaa ku jirta oo waa lagu dilayaa ummad toror ku jirta ma al-shabaab aan ka baqnaa mise villa soomaaliya aan ka baqnaa horta realityga aanay sheegaya maxaa yeelay asaaliibta la adeegsanaya iyo midda al-shabaab sakeeyaan wax difference u dhexeeya male maalin walba waxaan ku jirnaa trap dadka soomaaliyeed oo dhanna waxaa la geysiyey inaysan hadli karin ninka madaxweynihii magacaabay inuu ra-iisul wasaare noqdo oo fursad u siiyey inuu dalka soomaaliya madax ka noqdo oo sheekh shariif ahaa iyo madaxweynihii xilka ku wareejiyey ka horreeyey xurmada u quuri waayey oo marna diyaaradda u diiday inay ku aadaan kismaayo marna iyagoo beledweyne aadi rabay laga hor istaagay maantana iyagoo hotel jooga lagu xabadeeyey ra-iisul wasaarihii u shaqeyn ayaama dhaxas waxaa dhihi jiray ra-iisul wasaaruhu muxuu u hadli la-ayaa wixii jira u sheegi waay soo waa nin malaha og nimanka waxay yihiin ilaa nima yaa waxaan dhihi jiray muu wax caddeeyo halku markuu yimid raggi kale waxay leeyihin muu hadlo war ninkaa iska daayana marka waxbaa jireen sababtoo haddaanan wax ilaahay waxaan xishoonin haddii ilaahay kugu xiriiriyo khatarteeday leedahay runtii waxa soomaaliya ka socda wax laga aamusi kara maaha waxa ay ku socotaa dalkan meel halis ku jira waxaan ugu baaqayaa shacabka soomaaliyeed si midaysan iyagoo ay iskala saarin dictatoriya inay ka hor yimaadaan iyagoo si midaysan oo qabiil isku kala saarin inay sharciga ilaaliyaan iyagoo midaysan waxay heshiis ku yihiin oo doorasho inay galaan wax nin leeyahay ciidamada anaa iska leh ciidamadaydu yiri hadda tii u dambaysay wallaahi inaana been ka sheegayn wuxuu yidhi garow hala yimaada ma imaanaysaan lafeenaa uga baqnimo wuxuu yidhi dhuusamareeb ruuxa yidhi dhuusamareeb haddaa ka nimid xabadaa ka dhacay may anaa og waxba kama dhacayaan igu dhahay I don't know cidduu og yahay macnaheedu waxay tahay kuwa wax soo tuurana waa yaqaanaa literally maanta inaan wax ka qariyo ma rabo waxaa meesha soo socda niman international la yidhaahdo oo FMS iyo waxaas FGS iyo HFIMA oo ku haya waddamadooda waxay u qoraaciga jirta laakiin aniga waxaan inii sheegayaa wax aanan ogeyn inaan Puntland ku matali karin anigu aadi maayo habraha iyo ciyaalada meelaha la sheegay ninka daarood maxaa laga rabaa war ninkan daarood ana ma u malaynaa inuu daarood harab jiidayo run aan sheegayaa ha ku kalsoomina
nin daarood har u jiiday aan ma soo arag xataa mareexaan nin har u jiiday aan soo arag marka caadifada intii la iska daayo dardaarankayga ugu dambeeya weliba saaxiibada kale oo Soomaalida waa necab tahay Puntland aan kula dardaarmayo Puntland waxaan oran lahaa marna aysan aqbalin nidaam Soomaaliyeed oo aysan raalli ku ahayn oo federaal ah oo ay wax ka maamulayso oo transparency inay wax ku darsato xaraam bay ka tahay waa in waxa Soomaalinimada la sheegayo waa inay miiskaas dul saaranta Soomaalinimo lagu orkacsanayo hadhowna kuwa ugu qaylada badan ba ugu balanbala badan hadhowna aan la wadi karin dadka masaakiinta ee la siray ee meediyaha iyo dadka loo soo dirdiray iyo lacagaha loo qeybiyay ku siray iyo niman xoog wadaniyiin la dhaho habeenkii habraha u guda dadka waaweyn wax garadka lama hadlaan caruurta iyo habra aan warhayn oo TV-ga iyo aan fiirsan waxaas u sheekaya dadkiina mas'uuliyiintu halka jooga waxaan ii sheegayaa dadkiina waa nila gacan dhaaf hadda aamus lahaydeen oo nila ka xaysan lahaa oo sida hadda nimanka xamar jooga aan noqon lahaydeen oo kaleeto iyo hadda damiir yeelanayd horta idinkeena taala wixii dhacay 80maadkii hadday soo noqdaan waa waxaan anagu isbadnay waxaan u dirayaa fariin ah adkaynta Puntland midnimadeeda iyo dhulkeeda inay tahay arrin lama taabtaana raadinta Soomaali federaal oo mid ahna in loo saciyo ilaa ay ka imaanaysana la sabro haadaan in lagu dhacaano ku tarinay Soomaali aan jecelnahay haadaan lagu dhaco ku tarinay waxa la rabaa ilaa wax cad oo la yaqaan oo wixii qornaal ixtiraam ay yimaadaan waxaan qabaa xoogga waxa saartaan Puntland iyo jiritaankeeda inaasan wa salaamantiin wa salaamu calaykum waxaan iga codsan lahaa waa daalay inaad su'aal bi weydiinaysaan u maleynaa waxaan qariyay marka raali ahaada aad iyo aad marka hore sheegnay barnaamijku su'aalo ma lahan waxay ahayd session madaxweyne dadka kula hadlayay marka intaasaan kusoo koobaynaa madaxweynahana waa umad celinaynaa kasoo qaybgalayaashana waa umad celinaynaa habeenimo wanaagsan isku duubnidina daayartiyo haweenkow isku duubnidina darajadan ku garta